kulan wacan daawada subax wanaagsan meel walba oo joogto waxaad ku soo dhawaataan janaalka tusmada filmada hadana kale waxaad idin soo gudbinaa saakitoon maxaa laga qoraarmaha Bollywoodka kuwaas oo aan sidoo kale daawadaashin wada la wadaagi kartiin hada warbixintan waxaan ku soo qaadan doonaa Farun Dhawan iyo sidoo kale xidigta kale Samantha Ruth Barabu taxanahooda Citadel India waxyaabaha ka soo kordhayaan ku bilaabi doona Farun Dhawan iyo sidoo kale Samantha Ruth Barabu ay waxa lagu arki doona taxanaha lagu magacaabo Citadel kaas oo ahaa film Mareykan oo ay lahaayeen Russo Brothers kaas oo ahaa show reer Americana kaas oo lagu soo fasaxay Prime Video waxaan sidoo kale isla filmkaas uu yahay magacaas mid wata taas oo qaybtiisa Hindiya haatan warar xiiso leh ka soo kordheen ee ku aadan taxanahaasi warar ay qortay Benga ayaa waxa lagu wadaa in taxanaha Citadel Hindiya oo lagu wado in lagu hadlo ama lagu soo bandhigo xilladii 1990 ilaa sidoo kale dhamaadka 90meedii taas oo sidoo kale jilayaasha lagu wado in seminar ay u galaan taas oo bixinayso Prime Video taxanaha leh sidoo kalena taas oo lagu wado in uu bilaawdo ka hor November intaan la gaarin waxaana sidoo kale film sameeyaasha haatan ay ka shaqeynayaan in loo sameeyo qaab uu kaanshaha saashimeeyada Farun Dhawan iyo sidoo kale xidigta kale Samantha Ruth Barabu qorshaha wuxuu yahay in mashruucan uu la soo gabagabeeyo dhamaadka December taas oo sidoo kale Farun Dhawan markii uu dhameeyo haysan sameynta filmkiisa Bediya halka Samantha ay soo dhameystirto waxyaabaha kaga harsan in lagu wada filmkaas in la guda galo filmka wuxuu yahay mid ay leeyihiin Russo Brothers kaas oo sidoo kale filmka ee kala hore ay sameeyeen xidigda Priyanka Chopra iyo sidoo kale xidig kale Richard Madam kaas oo sidoo kale lagu soo fasaxi doono 2023 filmkaas ayaa sidoo kale waxa lagu wadaa in qodooyin badan lagu turjumo oo dalal badan laga dhigo sida Citadel India, Citadel Mexico, Citadel Italia iyo sidoo kale dalal kaleba kaas oo lagu wado in qaybta Hindiya uu yahay taxanahani mid armo badan laga ogaado Citadel ayaa waxa soo saar ka ah Russo Brothers waxaana sidoo kale qaybta Hindiya ee wadaan Farun Dhawan iyo xidigta kale Samantha Ruth Barabu oo qaybta hogaaminta waxaana director ka ah Raj Nidamuru iyo sidoo kale Krishnan DK dhinaca kale shaqooyin kale u yaal markaan film Farun Dhawan ayaa haatan waxa uu lagu wadaa in loo soo daayay filmkiisa Bediya kaas oo director ka ah Amar Kaushik waxaana la waday xidigta Kriti Sanon filmka ayaa waxa lagu wadaa in la daawado November 22 ee sanadkan halka Samantha Ruth Barabuna film xiiso leh u soo socdaan kaas oo kamid ah Shakuntalam Kushi iyo sidoo kale Yashoda ugu dambeyn waxaan eegi doonaa xidigta Goodbye Rashmika Mandana ayaa waxay ka hadashay update ugu dambeeyay ee filmka The Pushpa 2 ee soo socdaba Rashmika Mandana ayaa haatan waxay ku raaxaysanaysaa guush weyn oo gaar filmka The Pushpa The Race taas oo sidoo kale haatan filmkeeda koowaad ee ku soo galaysa Bollywood ee Goodbye la wada xidig Amitabh Bachchan shalay toolo oo jimcaha loo saaray box office-ka halka Rashmika Mandana haatan ay si baan ay kaga soo qayb qaadanayso ka soo muuqashada qaybaha bulshooyinka iyadoo haatan warar la wadaagtay ee la xiriira filmkeeda soo socda taxanaha Pushpa The Role xilli la weydiiyo waxyaabaha u qorsheysan markii ay soo gabagabeysay filmkeeda Goodbye xidigta ay waxay sheegtay in si dhaqso leh ay ku bilaabi doonto duubitaanka filmkooda ee Pushpa 2 kaas oo ay la wado xidiga Allu Arjun Rashmika Mandana ayaa waxa la weydiiyay hadii ay pressure dareemayso kadib guushada filmka Pushpa xidigta ay waxay sheegtay in film walba uu yahay mid gaar ah sidoo kalena ay sheegtay in waxyaabo kale film kale uu ka duwan yahay waxay intaasi si raacisay in xidigta film walba qaabkiisa ay kula dhaqmayso iyo si ka duwanba iyadoo sidoo kale ay ku raaxaysanayso processka filmkaas uu marayo iyo sidoo kale inay rabto in dadka halkaas u soo imaadaan ay u soo daawasho tagaan filmiyadeedaba kuwaas oo sheegtay inuu yahay filmo iyaga la xiriir doona waxay sidoo kale sheegtay in ay ka hesho in ay daawadaashada ku raaxaystaan filmadeeda markay u soo daawasho tagayaan sidoo kale filmkaasi ay ugu qabayaan jecel iyo sidoo kale filmadeeda horena ee sidaas kale ay yeeleen sida sheegtay Rashmika Mandana ay haatan waxay mashquul ku tahay gabagabada shaqooyinkeeda ka wada Mumbai sidoo kale xidigtan ay waxa u soo socda labada film oo Hindiya oo ay ku wada duubis sida Animal kaas oo ay la wada Ranbir Kapoor halka sidoo kale ay duubaysa filmkeeda Goodbye codka ee saarayso halka film kale ee Mission Majnu waxa la wada xidig kale sida Hadmal Hodra waxaana sidoo kale u sii raacsan film Karel Tamil ee Farisu kaas ay la wada Vijay Talapati Goodbye makan finish makan bana doorkeeda waxa uu yahay Tara Bala
taas oo director ka yahay Fishal Bahal waxaana xidigtaas ay tahay mid dhaqankeedu isku xun yahay sidoo kalena xidigta wax su'aal walba ay ka keenayso hababka nolosha iyadoo sidoo kale ay aaminsantahay waxyaabaha loojiga ama maskaxda asaata ugu dambeynta ay fahmayso muhiimadda ay leedahay dareemaha filimkaas ayaa Rashmika Mandanna wuxuu filimkeeda ugu horeysay Hindiga kusoo gashay Goodbye kaasoo tiyaatar la saaraba inta aan kusoo xirnaa daawada saaki tol muuqaaladan laga qoraarmaha Bollywoodka kuwaas oo aan sadaan daawadaashana waa la wadaagi kartiin hadaad ka sharbixinana la wadaaga asxaabtiina waad ku maasantiin alaabaha sidaad muuqaaladan aad u daawataan